iyadoo dadaal looga jiro sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ah looga sameyn lahaa shaqo abuur si dhalinyaradu ay u helaan shaqooyin ayaa xarunta la talinta cilmi baarista ee Best Consultancy ay imtixaan ka qaaday in ka badan 300 oo dhalinyaro oo shaqo abuur u sameysay shirkadda Road Electronic kuwaasi oo qaban doona shaqooyin kala duwan qaar ka mid ah dhalinyarada imtixaanka u fadhiistay ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan imtixaanka ay u fadhiisteen waxaan ahay mid kamid ah ardayda habka qoro waxaan ahay mid kamid ah ardayda meel musuq kala jimisi ilaa iyo heerkoodii jaamacadeed ilaa iyo heerkoodii labada aan saxdiga waxaan maanta meeshaan u nimaanay inaan soo galno imtixaan ay qaadayso shirkadda lagu magacaabo Best Consultant Training oo ah mid kamid ah shirkadaha magaalada musuq ka shaqeeya oo ku caawiyo dhalinyarada in ay helaan haddii ay helaan traininada waxbarashada haddii ay helaan shaqooyinka magacayga waa Fardada Cali Cumar maanta soo qaybgashay barnaamijkan imtixaanka lagu qaaday shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qabanayeen Best Consultancy baarista kuwaasoo ku abuuraya dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo inay kala dadka shaqadoonka iyo dadka shaqada haya shaqada u baahan shaqada loo qabto inay kala siiyaan u furan tahay marka aad aan ugu faraxsanahay maanta in la helo barnaamijyo noocaas ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo loogu abuurayo ay ka faa'iideysan karaan fursad u tahay maamulaha xarunta la talinta iyo cilmi baarista ee Best Consultancy Nuur Yuusuf Nuur oo ka hadlay goobta ayaa kula dardaarmay dhalinyarada helay shaqo abuurka in ay ka faa'iideystaan shaqooyinka ay heleen waxaan rajeynayaa in intaana qofood soo bixi doonto waxaan rajeynayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala imtixaanka idin fududeeyo inaan ku dadaashaan qof walba inuu helayo ilaahay u calfo marka waxaa ogaataa kulli saa hadda dardaarankiin kugu sheegay inaad isticmaasho maskaxdaada waayo imtixaanka la keenay wuxuu badaya maskaxda marka maskax kale aad isticmaasho laga yaabo inay xoogaa ula sanbaro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Road Electronics si loogu aamineen inaan u soo saarno dad uga shaqeyn lahaa xaruntooda dad ay ku aamini lahaayeen xogtooda maamulaha Road Electronic mudane Maxamed Daahir ayaa tilmaamay in muhiimadda ay u leedahay dhalinyaradan shaqada helay taasoo uu ku tilmaamay in ay tahay horumar lagu tilaabsaday dhalinyarada shaqadoonka jaamacadaha soo baxay laakiin soo shaqeeyay meelaha kala duwan laga yaabo inay kasoo shaqeeyeen CTV-da joogtaan dadkii badnaa oo soo codsaday lasoo kala xulay intii xulku ku dhacay ama nasiibku u heshay in laga waco imtixaanka oo kala saarista ugu dambeysay ay maraan halka kasii keenay mar labaad waa inuu helay Best Consultants muddooyinkan ayaa maamulka gobolka Banaadir dadaal ugu jiray sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ay u heli lahaayeen shaqooyin si ay u dhamaato dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed Muuse Cismaan Abtow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho